nabad dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku soo qaadanayno wasaaradda waxbarashada Puntland oo sheegtay in guulo muhiim ah ay ka gaartay dhanka waxbarashada iyo midowga Yurub oo joojiyay dhaqaalihii uu ku bixin jiray horumarinta imtixaanaadka Puntland. wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Dr. Abshir Yusuf Ciise ayaa warbixin guud waxa uu ka bixiyay xaaladda guud ee waxbarashada Puntland iyo halka ay marayso. wasiirka waxbarashada oo xafiiskiisa saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay in si xawli ah ku socoto waxbarashada Puntland marka loo eego 3 sano u dambeysay oo guulo taariikhi ah laga gaaray siyaasadda waxbarashada Puntland. waxaan salaamayaa bahda saxaafadda oo hadiyo gooraale ka haqabtira ummadda Puntland ka haqabtira hawlaha wasaaradda waxbarashada socda iyo hawlaha kale ee dawliga ah. inta markaan ka gudbo marka hore ogeysiis baan salaan guud waxaan u dirayaa dhammaan gaar ahaan bahda waxbarashada maamuliinta macallimiinta ardada iyo waalidkoodba. warbixin guud haddaanu ka bixino xaaladda guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland aad iyo aad bay u fiican tahay, hanaankeeda aad iyo aad buu wanaagsan yahay, xawli guud buu ku socdaa waxbarashada Puntland. waxaana daliil u ah 3 sanadood ugu dambeysay sanadba sanad ka soo dambaysa ayay cirka u sii baxaysay, sanadkii dhaweyd ayay ugu sareysay waxbarashadu. waxaanu filaynaa sanadba sanad ka sii dambaysa in ay cirka sii marto ilaahay dakiis. laba astaamood laba qodob oo waaweyn bayna salka ku haysaa. waxa ka go'an wasaaradda waxbarashada inay ballaariso waxbarashada Puntland oo la gaarsiiyo miyi iyo magaalaba la gaarsiiyo, taasoo markaa macnaheedu yahay in dugsiyo badan la dhiso, kuwa la dayactiro, kuwana la sii ballaariyo, kuwa la sii kordhiyo. taa waxa intaa u dheer ballaarinta u dheer in haddana la tayeeyo oo tayadeeda aad iyo aad looga hawlgalo, taasoo mar dhow ay la qaadaa dhigi doono insha Allah iyadoo ballaaran. koritaanka ay korayso waxbarashadu Puntland tayadeeda kaliya cirka mari mayso, laakiin waxa baraya kororkeeda maraya. markii la asaasay Puntland waxbarashada la asaasay 8% bay maraysay asaasiga, maanta waxay maraysaa 5%, 6 iyo 50 ayay 100% maraysaa. halka waxaad arkaysaan xawliga uu ku socdo koritaanka tirada ardada. haddaan intaa ka gudbo koritaankaas ballaarinta la ballaariyay iyo tayada waxbarasho oo israacsan oo mar dhow ay qaadaa dhigi doonaan wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud iyo agaasimaha imtixaanaadka ay dhigi doonaan. arrintaas iyada ah xawligaas waxaa lagu helay nabadgelyada iyo xasiloonida iyo amniga iyo dawladnimada ayaa lagu helay runtii. marka sidaas loola socdo marka guud ahaan waxaan ku soo gabagabeynayaa isagoo horraca in tacliintu xawliga fiican ku socoto oo shacab iyo dawladba laga qayb galo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Dr. Maxamed Farax ayaa isaguna sheegay in wasaaradda waxbarashada Puntland ay guulo waaweyn oo lagu faani karo ay u tahay soo saaridda manhajka waxbarashada Puntland oo wadani ah, kaasoo ah manhaj wadani oo ka tarjumaya waddanka. inaan ka hadlo 4 qodob, inaan ka hadlo manhajka waxbarashada iyo yoolka ay wasaaraddu higsanayso. qodobka labaad deeqaha waxbarashada inaan iyadana ka hadlo. qodobka saddexaad waxbarashada sare iyo xaaladeeda iyo meesha ay marayso. iyo qodobka afraad oo ah mashaariicda waxbarasho ee ay wasaaraddu gacanta ku hayso. manhajka haddaan ku hormaro wuxuu ka mid yahay yoolalka waaweyn ee waxbarashada, waa tiir ka mid ah tiirarka waaweyn. waxaa la yiraahdaa 3 tiir bay waxbarashadu leedahay, waa manhajka iyo macalinka iyo ardayga. ummad markay rabto inay ardayga ay rabto ay soo saarto qaabka ay rabto inay u qaabayso waxay ardayga ku soo saartaa waa manhajka. walidaalika waxa la yiraahdaa ummad ka amaahata manhaj ma guuleysato.
sidaa daraadeed baa wasaaradda waxbarashadu waxay xoog saartay in la helo manhaj wadani ah oo ardada Soomaaliyeed qaabka ay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland iyo ummadda reer Puntland ay u rabaan ardayga soo baxaya inuu noqdo manhajkii ka tarjumi lahaa ayay wasaaradda waxbarashadu xoog saartay manhajka wadanigaana dadaal fara badan ayuu soo maray intii wasaaraddu ay shaqada haysay marar fara badan waxa lagu eedeeyaa ama Soomaalida burburkii dawladda ka bacdi soo baxayay oraahyo fara badan oo oranaya ardayga Soomaaliga waxa la baraa taariikhda iyo juqraafiga dawladaha Carabta ama dawladaha dariska ah taas runtii aan ka tarjumaynin ardayga la rabo in la soo saaro oo ah arday wadani ah akhlaaq wanaagsan aqoon leh dalkiisa yaqaana dawladiisa yaqaana anagoo taa ka duulayna ayaynu runtii waxaan u hawlgalnay in manhajka la dhameystiro waxa la dhameystiray muqarrarka dugsiyada sare oo runtii la mideeyay dhammaan dugsiyada sare ee dalka oo dhan sidoo kale waxa la dhameystiray muqarrarka dugsiyada hoose dhexe oo iyadana aad iyo aad loo dhameystiray waxa la dhameystiray waxa la yiraahdaa qalfoofka manhajka oo ah framekii guud ee manhajku ku shaqeynaya dugsiyada hoose iyo dhexe waxa kale iyaguna runtii manahij wax ka dhiman yihiin ay jiraan oo shaqeeya manhajka waxbarashada dadban manhajka waxbarashada farsamada oo wasaaraddu ay ku hawl jirto insha Allah ta'ala inay manhajtaas dhameystirto meel fiican buu hadda soo gaaray manhajku maadaama qalfoofku manhajka ama framekii uu diyaar yahay maadaama muqarrarka dugsiga sare iyo dugsiga hoose iyo dhexe ay diyaar yihiin waxa dhiman oo ay wasaaraddu hadda ku hawl jirtaa in la diyaariyo qoraalkii buugaagta ardaygu muqarrarku waa guide-kii ama hogaankii ama hogaamiyihii macalinku raaciyay waa soo koobayay ardaygan wuxuu baranayay laakiin buugga ardayga wax ka baranayay waa hawsha aan hadda ku tala jirno waxaana runtii shaqada koowaad ay tahay in la qoro buugga ardaygu u baahan yahay oo u dhigan lahaa ama waxbarashada ka faa'iideysanayo taas gacantan ku haynaa hadii Ilaahay idmo sanadkan bilaabanaya 2017 waxa qorshe u ah wasaaradda waxbarashada in la helo arday walba oo reer Puntland ah inuu helo buuggii uu wax ka baran lahaa qorshahaasi waa qorshe runtii aan gacanta ku hayno waxa noo dhiman waxa weeye qoraalkii buugaagta iyo daabicidoodii iyo maxaan ku yiraahdaa qaabkii loo qaybin lahaa taasna qorsheedii wasaaraddu gacanta ku haysaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sanadka soo socda 2017 in la helo manhaj dhameystiran oo arday walba buuggiisa haysto waa yool aan higsanayno ujeedadeenu ay tahay in manhaj ka tarjumaya ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ardaygan u baahanahay in la helo taas waa qodobka labaad aan rabaa inaan ka hadlo waxa deeqaha waxbarashada ardayga soo dadaala oo runtii waxbarashada kaalin fiican ka gala oo waqti fara badan wax soo baranayay marka uu dugsiga sare dhameeyo wuxuu u baahan yahay inuu helo waxbarasho sare oo runtii takhasus ah dhisaysa ardaygaas u yeelaysa shaqadii uu barito ka maalin uu ku maaragta shaqaysan lahaa u sameynaysa taa wasaaraddu ay ka hawl gashay jaamacadaha dalka ku yaala runtii lagu dhiirigeliyo ardayda arday fara badan qaata soona saara aqoon-yahanadan u baahanay oo kala duwan laakiin haddana waxa jira takhasusaad fara badan oo ardayga Soomaaliga ama reer Puntland uusan runtii ka helaynin dalkiisa oo ay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka gaar ahaan medicine-ka takhasuskiisa ay ka mid tahay engineering-ka ama muhandiska ay ka mid tahay takhasusaad fara badan oo technology ah oo casri ah oo ardaygu u baahan yahay taas waxa marka ardaygu u baahdo inuu helo jaamacad dibadda ah si uu takhasusaadka dalka looga baahan yahay iyo aqoonyahanada u baahanahay maaragtay loogu soo tababaro oo ay wax ugu soo bartaan wadamo fara badan oo dariska oo ay ka mid tahay dawladda Ethiopia ay ka mid tahay Suudaan ay ka mid tahay dawladaha Carabta Jaynaha wadamadaas ay wasaaraddu runtii dadaal badan ku bixisay in deeq waxbarasho laga helo waxaan helay 308 arday ayaan waxbarasho gudaha iyo dibaddaba aan u dirnay ardaydaas oo runtii takhasusaad kala duwan soo baranayay
qaarkood soo baranaya caafimaadka ama loo diray caafimaadka qaar loo diray engineerinka qaybihiisa kala duwan ardayda dibadda aaday intoodii badneed way baxeen insha Allah taala wayna waxbarashadooda way bilaabeen waana fursad aan rajeynayno in aqoon-yahano fara badan oo dalku u baahan yahay ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah gudaha jaamacadaha gudaha arday fara badan baa iyadana wasaaraddu runtii la raadisay inay waxbarashada gudaha ay helaan jaamacadaha dalkuna runtii dadaal fara badan ayay ku bixiyeen arintaas waana ku mahadsan yihiin inay wasaaradda kala shaqeeyaan sidii arday fara badan oo baahidoodu taagan tahay ay waxbarasho u heli lahaayeen waxaan run ahaantii shuruudaha loogu qaybiyey ama qaabka loogu qaybiyey waxbarashadu waxa weeye ardayda runtii aan marka laga eego dhinaca resource-ka la mid ahayn ardayda magaalooyinka waaweyn wax ku barta ee goobaha fogfog jooga waxaan ugu talagalnay deeqdii waxbarasho ee helo boqolkiiba inay 10 qaataan sababtoo ah ardayga jooga maxaan ku rahay gardafu wax ku baranaya ama ku baranaya galdogob iyo meelaha ugu fog ama garacad jooga ardaygaas ama maaragtay buuhood la jooga iyo ardayga jooga Garowe iyo Boosaaso isku heer ma marka la eego dhinaca facilitieska iyo maxaan ku rahay resourceska ardaygan uu helayo macallimiin haday ahaan lahayd iyo qalab haday ahaan lahayd isku mid ma sida daraadeed si la isku soo gaarsiyo ardaygaas waa in si gaar ah loo xusaa marka waxaan u garanay scholarship kasta oo la helo ama deeq waxbarasho kasta oo la helo in boqolkiiba 10 la siiyo ardaydaas goobaha fogfog wax ku barta 30 arday waa fursadaas ka faa'iideystay oo iskuuladaas goobaha fogfog dhigta waxaan kaloo iyadana ugu talagalnay boqolkiiba 5 in la siiyo dadka jilicsan oo dadka minority-ga ah oo ayagu fursad u helin inay waxbarashada ka faa'iideystaan boqolkiiba 5 in la siiyo 15 qof ayaa iyagana runtii fursadaas ka faa'iideystay waxaan inta soo harta boqolkiiba 85 ah ardayda waxa lagu qaybiyaa merit arday walba iyo kaalintu galay ayuu ku qaadanayaa waxbarashada taasina runtii aad iyo aad baa deeqda waxbarashada looga faa'iideystay arday fara badanna fursadihii ay raadinayeen umrigooda ayay heleen waxaan rajaynayaa wasaaraddu inay arintaas si ballaariso goobo fara badan oo waxbarashada Puntland ardaydu ay ka heli karaan insha Allah taala in helo qodobka saddexaad aan rabaa wax ka tilmaamo waxa waxbarashada sare ardaygu runaantii waxbarashada sare waa goobtii ay ka soo baxaysay aqoon-yahanada dalku u baahan yahay qaybaheeda kala duwan sida daraadeed in la xoojiyo oo wasaaraddu haday tahay dhinaca siyaasadda iyo baahiyahooda oo la daboolo waa waajib saaran wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare sida daraadeed wasaaradda waxaan ku darnay magaceeda ama ku soo haleeshiinay qaybta tacliinta sare markii hore waxay ahayd wasaaradda waxbarashada waxa laga dhigay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare si ay waxbarashada sarena ay runtii qayb uga noqoto dadaalka ay wasaaraddu u wado run ahaantii waxbarashada sare dad aqoon-yahan ah oo fara badan baa dadaal sameeyay kaalin fiican bayna soo gaarsiiyeen laakiin waxay u baahan yihiin inta ka badan in dawladdu ay gacanta ku hayso oo laga warhayo qaabka iyo siyaasadda ku shaqeynayaan laga warhayo sharciyada kala hagaya yaa jaamacad noqon kara yaan jaamacad noqon karin maxaa looga baahan yahay qofka jaamacad noqon kara qofka professorka maxaa looga baahan yahay taasina runtii arin aad iyo aad muhiim u ah weeye wasaaraduna kaalin xoog leh ay ka gashay kobcinta tacliinta sare sida daraadeed waxaan dejinay siyaasadda tacliinta sare oo la dhameystiray waxaan iyadana sidoo kale dhammeystirnay sharcigii waxbarashada sare oo runtii muhiim u ah waxbarashada sare qofka loo ogol yahay waxbarashada sare keebuu noqonaya ama muasasada furan karta waxbarasho sare maxay noqon kartaa maxaa laga rabaa sharcigaas waa dhammeystirnay waxaan rajaynaynaa inuu dhaqan galo insha Allah taala jaamacad qofkii furi kara ama cidii furi kartaana inay awood u yeelato inay furto cidii kalena inaysan dadka lugoynin ayaan ugu talagalnay insha Allah taala waxa la tababaray runtii muddadii la soo dhaafo 2 sano la soo dhaafay macallimiin fara badan oo kamid ah macallimiinta jaamacadda shaqaalaha jaamacadda tababar badan oo ay u baahnaayeen jaamacadda ayaa runtii loo qabtay ay kamid tahay tababarka taya dhowrka ay kamid tahay tababarka manaahijta dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa intaba waa lagu tababaray taasina runtii qayb weyn ka tahay agab waxbarasho oo kala duwan ayaa runtii loo qaybiyay jaamacadaha sidoo kale waxa hadda gacanta lagu hayaa diiwaangelinta jaamacadda oo qaybo badan dhameystirmay wixii dhimanna aan hadda insha Allah taala gacanta ku haysto tacliinta sare ee dalka
agabka aan runtii gaarsiinay jaamacadaha waxa kamid ah e-granary oo ah electronic library ama library electronic ah oo dhammaan jaamacadaha Puntland runtii la gaarsiiyay si ardaygu uu helo maktabada uu baahan yahay buugaagta uu baahan yahay resource uu baahan yahay ardaygu uu helo sidoo kale waxa la gaarsiiyay qalabka maxaan ku yiraahdaa ay u baahan yihiin jaamacaduhu ah qalabka taya dhowrka ayadana runtii jaamacadaha waa la gaarsiiyay waxaan rajaynayaa mashaariicda kale ee cusub waxa la iyo wixii baahiyo ah ee ka jira tacliinta sare in wixii ay dabooli karto wasaaraddu iyadoo la kaashanaysa caalamka iyo dawladda intaba inay maaragtay ay wasaaraddu wax ka qabato insha Allah ta'ala agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Axmed Cabdi Cali Shire ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadu inay gaartay meelaha fogfog laamiga ka baxsan halkaas oo uu sheegay in laga hirgeliyay adeeg waxbarasho markii ugu horeysay waxaan rabaa inaan aniguna ka hadlo bal dhowr qodob oo muhiim u ah waxbarashada Puntland iyo hawlaha waxbarashada lagu horumarinayo ee hadda ka soconaya gobolada Puntland waxaan rabaa inaan dadweynaha la wadaagno iyo dadka waxbarashada ka shaqeeya shaqooyin iyo hawlo ballaaran oo ka soconaya gobolada Puntland gaar ahaan waxaan xusayaa gobolada xeebaha degmooyinka xeebaha fog oo ka fog centerka ama xarumaha dhexe ee maamulka dawladda ka fog oo waxbarashadoodu ay markii hore aad u hooseyn jirtay hadda waxaanu u sameynay barnaamij aanu doonayno in aanu ku xoojino oo kor ugu qaadno adeega waxbarasho ee ka jira xeebaha fog laga soo bilaabo Jariban Bandarbayla Xaafuun Calula Qandala Laasqoray adeega waxbarashada guud ahaan wadanka oo dhan waan ka shaqeynaa laakiin gaar ahaan gobolada waxaan u soo qaatay tirada ardayda ee wax baranaysa aad bay u yarayd dadkuna inta badan waxay u soo haajiraan magaalooyinka waaweyn ee laamiga ku yaala marka wasaaradda waxbarashada waxay keentay siyaasad ah in dadka adeega waxbarashada meeshooda loogu geeyo waxaan ka wada shaqeynaynaa oo naga taageeraysa hay'adda UNICEF degmooyinka hadda aan tilmaamay sanadkan gudihiisa waxaanu ka dhisi doonaa ilaa dhowr iyo 30 fasal oo gaar u ah degmooyinkaasi si macallimiinta iyo dadka kale ee saraakiisha waxbarashada ka shaqeeyana tababaro iyo gunooyin baa la siin doonaa insha Allah si dadku ay halkooda ugu helaan adeegii waxbarashada hawlaha kale ee muhiimka ah sanadaha kan soconayay gaar ahaan hadda dhacaya waqtigan la joogo waxa kamid ah in la kormeero lana tayeeyo waxbarashada dugsiyada ku yaala gobolada dalka oo dhan waxa lagu marayaa kormeer bisha hadda February ah bisha labaad sanadka iyo bisha soo socotaba maamulayaasha iyo macallimiinta iyo dadka waxbarashada ka shaqeeya iyo sida waxbarashadu ay u dhacayso u socoto ka qaybgalka dadku sida uu yahay qaabka waxbarashadu u socoto fasalka dhexdiisa sida uu yahay maamulka waxbarashadu sida uu yahay arrimahaas oo dhan baa kormeer waxa lagu sameeyaa kormeerkuna macnaheedu ma aha soo arag kaliya waxa weeyaan tayada waxbarashada la kordhinayo tababaro la siinayo dadka waxbarashada maamulayay kadibna xog lagu soo celinayo wasaaradda dhexe xogtaas oo lagu saleyn doono maamulka iyo qorsheynta hawlaha siyaasadda iyo adeega siyaasadda runtii waxay kaloo kormeerku wax ka taraa isku xidhka dugsiyada iyo wasaaradda dhexe iyo fulinta siyaasadaha waxbarashada kala duwan sidoo kale wasaaraddu waxay qabatay bishii koowaad ee sanadkan 2016 tababaro aad u ballaaran xilliga lagu jiro fasaxa dhexe ee iskuulka tababaradaasi ilaa 1000 iyo dheeraad macallimiin waa ka qayb galay waxay isugu jiraan macallimiin cusub iyo macallimiin shaqaynayay iyo macallimiin tababar degdeg ah oo ku saabsan maadooyin gaar ah oo la xoojinayo intaba way isugu jiraan tababarka macallimiintu isaga saldhig u ah adeega waxbarashada iyo tayada waxbarashada labadaba waxa kale oo aanu dhawaan ku dhawaaqaynaa insha Allah in la kormeero la tiro koobo lana diiwaan geliyo si buuxda macallimiinta ka hawlgala dugsiyada waxbarashada Puntland taas waxay maaragtay muujinaysaa in wasaaraddu awood u leedahay inay gaadho dhammaan dugsiyada iyo dhammaan waxbarashada dugsiyada hoose dhexe wadanka tiradooda waa 630 iskuul macallimiintuna waa ilaa 5,000 oo macallin marka wasaaraddu awood waxay u leedahay dadkaas oo dhan inay gaadho oo ay soo diiwaan geliso xogtooda kuna kaydiso wasaaradda dhexe waayo macallimiintu qaar baa shaqada ka taga qaar cusub baa shaqada soo gala labadii sano saddexdii sano baa isbedel weyn baa ku dhaca marka waa inaanu la soconnaa oo
aan mar walba xogtooda haynaa si aan ula soconno inta tababarka u baahan iyo meelaha macallimiintu ay ku yar yihiin iyo gunooyinka iyo adeega macallimiintu sida uu yahay tababarkaasi wax badan tirakoobkaasi wax aad iyo aad u badan ayuu u faa'iideyn doonaa qaabaynta iyo maamulka waxbarashada guud ahaan sidoo kale waxaanu gacanta ku haynaa siyaasado kala duwan oo lagu dhaqayo adeega waxbarashada waayadii hore waxaa waxbarashada si hortaa bannaana looga shaqayn jiray laakiin hadda waxaan rabnaa qayb walba in la daraaseeyo loona sameeyo siyaasad ku aadan oo ku habboon tusaale ahaan waxyaalaha hadda aanu gacanta ku hayno waxaa ka mid ah waad ogtihiin bulshadeenna waxay u badan tahay dad xoolo dhaqato ah xoolo dhaqataduna dad meel degan maaha ee waa dad reer guuraaya marka waxbarashada adeegeeda looma gaadhsiin karo sida dadka degan oo kale waa in la helaa hab iyaga ku habboon oo noloshooda reer guuraani bay ku xidhan tahay waxbarasho la guurta iyaga waa in la helaa marka waxaanu gacanta ku haynaa haddaan wasaaradda waxbarashada nahay siyaasad u gaara dadkaas xoolo dhaqatada waxaana lagu tilmaama dadka boqolkiiba 50 boqolkiiba 60 inay yihiin bulshada reer Puntland ama Soomaaliya marka la qiyaaso siyaasad u gaaraan u dajinayna insha Allah lagu dhigi doono waxaanuna rajaynaynaa in aan ku guuleysan doono insha Allah qaybaha bulshaduna waa inay nagala qayb galaan ganacsatada iyo ururada bulshada hay'adaha nala shaqeeyaana si buuxda inay nagala qayb galaan siyaasad kale oo iyaduna aan tusaale ahaan soo qaadanayo waa dadka baahiyaha gaarka ah leh aynu ama curyaan ha ahaado ama indhaha maaragtay aragtiisu ha yaraato ama si kale waxa u jiraan oo xuquuqda carruurta caadiga ah oo kale bay leeyihiin iyagana waxaan u sameeynaynaa siyaasad gaar ah oo lagu dhaqo oo loogu adeego lagu diyaariyo adeegay u baahnaayeen iyo waxbarashada ay u baahnaayeen farsamada gacanta shaqo wanaagsan baanu ka qabanay waxaanu diyaarinay policy siyaasad iyo istaraatiijiyad u gaar ah oo lagu xoojinayo sidii loo heli lahaa tababar iyo waxbarasho farsamada gacanta iyo xirfadaha ah oo ka jawaabaysa baahida waddanka ee xagga dhaqaalaha arrimahaas oo dhan wasaaradda waxay kala shaqeysaa qaybaha bulshada ee ay khusayso sida jaamacadaha ururada bulshada hay'adaha samafalka ee nala shaqeeya deeq-bixiyayaasha laakiin hogaaminta iyo dejinta khidada iyo siyaasadda waxa iska leh wasaaradda iyo fulinta hogaaminta fulintaba intaba wasaaradda ayaa leh markaan usoo noqdo xagga iskuulada waalid badan iyo dad badan oo arrimaha bulshada iyo arrimaha waxbarashada daneeya waa nala soo xidhiidha inta badan oo runtii nagu dhiirigeliya adeega waxbarashada in la hagaajiyo annagoo awalba shaqadeedu ay intaa ahayd haddana bulshada waxaa ka muuqata rabitaankeedii in ay maaragtay na soo gaadhsiiyaan in badan oo annaguna waa inaan ka jawaabnaa marka oo aanu kaga jawaabnaa siyaasad ku habboon iyo shaqo ku habboon oo maaragtay baahidii waxbarashada iyo adeegii waxbarashada lagu daboolayo waxaanu dhawaan samayn doonaa diiwaangelin buuxda oo loo sameynayo dugsiyada Puntland iskuul walba waxaan siin doonaa shahaado buuxda waalidka waxaan faraynaa marka diiwaangelintaasi ay dhammaystirto insha Allah ilaa bisha 7 sanadkan bay dhammaystirmi doontaa in carruurta iskuulka aad geysanayso aad weydiiso inuu ka diiwaangashan yahay wasaaradda waxbarashada in kale marka uu ku cadeeyo oo ku siiyo shahaadadii wasaaraddu ku diiwaangelisay markaas aad carruurtaada geysanaysaa haddii iskuulku uusan diiwaan gashanayn sanad dugsiyeedka soo socda bisha 8aad waxa weeyaan waxqabadkiisa wasaaraddu ma aqoonsana wayna talaabo ku habboon bayna ka qaadi doontaa iskuul walbana xaq buu u leeyahay maaha wax adag oo culus oo maaragtay dhibaato ah inaad iska diiwaan geliso wasaaradda waxbarashadu maaha waa wax fudud kaliya waxa laga doonayaa inaad qaadato siyaasadda waxbarashada waddanka ku dhaqanto nidaamka waxbarashada waddanka u hoggaansato maamulka iyo hagidda wasaaradda waxbarashada aad u hoggaansato arrimaha imtixaamaadka oo wasiir ku-xigeenkuna ka hadlay agaasimaha imtixaamaadkuna wuu faahfaahin doonaa dhammaan maamulayaasha iskuullada iyo ciddii kale ay khusaysaba waxaan faraynaa in ay u hoggaansamaan dikriyaatada ka soo baxday wasaaradda waxbarashada oo qeexaysa sida imtixaanka loo maamulayo
daawadayaal intaas haddaynu kaga gudubno guulaha ay wasaaradda waxbarashadu dhanka waxbarashada ka soo hoysay dhinaca kalena waxaa jira midowda Yurub ayaa joojiyay dhaqaalihii uu ku bixin jiray horumarinta imtixaanaadka Puntland. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa shaacisay in midowda Yurub uu joojiyay dhaqaalihii uu ku bixin jiray horumarinta imtixaanaadka Puntland oo ah imtixaanada ugu wanaagsan dhanka habqaadista iyo hubinta iyo dhanka kalsoonida. agaasimaha imtixaanaadka Puntland Axmed Maxamuud Warsame ayaa ku dhawaaqay iyadoo taa laga duulayo in wasaaradda waxbarashada Puntland ay kordhisay lacagihii laga qaadi jiray ardayda imtixaanaadka u fariisanaya. ahamiyadda uu leeyahay imtixaanku iyo baahiyaha caqabadaha ka jira waxaan kala rabnaa iyadana inaanu wax ka taabano haddii Ilaahay yiraahdo aragtida fog ee wasaaradda waxbarashadu ay ka leedahay imtixaanka iyo habsami u socodkiisa. waxaan rabnaa insha Allah taala arrimahaas inaan wax ka yiraahdo. sida la wada og yahay wasaaraddu waxay qaadaa imtixaanka shahaadiga ah sanad walba bisha May ardadu ay kaga baxaan dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare fasalka form 4 ka ah. imtixaankaas wasaaradda waxbarashada ayaa gacanta ku haysa. waxa kaloo jira imtixaano kale oo iskuuladu ay qaadaan oo la yiraahdo imtixaanada naqliga ah. imtixaanadaas naqliga ah wasaaraddu gacan kuma lahan, kaliya waxay badanaa dugsiyada ay ku taageertaa waxa weeyaan macallimiinta lagu tababaray imtixaanada shahaadiga ah amba imtixaanka caamka ah la yiraahdo macallimiinta lagu tababaray khibradda iyo xirfadda dejinta sixidda maamulka imtixaanadaasi inay ka hirgeliyaan iskuulada ay joogaanna si labadii imtixaan ay isu soo dhawaadaan amba ay isku heer u noqdaan. imtixaankaas waa qiimeynta rasmiga ah guud ahaan iyo gaar ahaanba waxbarashada ay wasaaradda waxbarashadu mas'uulka ay ka tahay. imtixaankaas si buuxda ayaa wasaaraddu u maamushaa. waxa kale oo qayb weyn imtixaankaasi uu ka qaataa hubinta tayada waxbarashada. runtii tayada waxbarashadu waa wax aad u ballaaran. markaanu ka hadlayno tayada waxbarashada waa wax aad iyo aad u ballaaran. waxaa soo hoosgelaya tababarka macallimiinta, waxaa soo hoosgelaya manaahijta, waxaa soo hoosgelaya manaahijta, waxaa soo hoosgelaya kormeerka, waxaa soo hoosgelaya dhammaan wax allaal wixii tayo khuseeya oo dhan qayb muhiim ayuu imtixaanku ku leeyahay. tusaale haddaan bixino sanad walba imtixaan baanu qaadnaa. natiijadiisa markay soo baxdo waxaa ka dhasha tababaro xilliga imtixaanka natiijadiisa la sii daayo. bil walba oo July bisha sanad walba July waxaa la qabtaa tababar ku saabsan kor u qaadida iyo kobcinta xirfadda dhigista iyo barashada. macallimiinta sanad walba waa la xareeyaa iyadoo waliba ay gaarayaan tiradooda dad aad u fara badan boqolaal ayaa la xareeyaa. waxaana lagu xareeyaa kuliyadda tababarka macallimiinta ee GTEC. tababarkaas wuxuu ka dhashaa baahidii ka soo baxday natiijadii imtixaanka ee la fasaxay sanadkaas. natiijadaasi waxay caddaysaa oo ay soo saartaa meelaha ay ka jiraan goldololooyinku, maadooyinka lagu liito ee dugsiga dhexe iyo dugsiga sare labadaba. waxay soo saartaa tayada ardada iyo wixii ay ka qaateen sanadihii la soo dhaafay waxbarashadii ay ku jireen. waxay soo saartaa gobolada iyo sida loo kala tartamo iyo farqiga u dhaxeeya aqoonta gobolada. waxay soo saartaa maamulayaasha iyo aqoontooda iyo tayadooda maamuleed ee iskuulada ay ku maamulayeen. dhammaan intaas oo macluumaadka kadib waxaa ka dhasha tababaro xoog badan baa ka dhasha. maamulayaasha loo sameeyaa, waxaa loo sameeyaa tababaradaas macallimiinta maadooyinka lagu hooseeyo ayaa loo sameeyaa. intaas oo dhamiba waxaa keena imtixaanka. meelaha ay sidoo kale natiijadaas iskuulada ay ku liitaan oo kale waxaa loo diraa kormeero culculus baa loo diraa oo dabagala si sanadka soo socda iskuuladaasi aanay meeshii u joogin ay uga soo kacaan. tababarka macallimiinta, tayada kormeerka, manaahijta, ujeedooyinka guud iyo ahdaafta guud ee waxbarashada
waxaasoo dhan ayuu imtixaanku qayb ahaan uu ku leeyahay oo uu dowr weyn ka qaataa. imtixaanada Puntland waxaan bilownay sanadkii 2003 laga soo bilaabo xilligaas wasaaradda waxbarashadu oo sanadkan 14 maraysa. wasaaradda waxbarashadu waxay soo waday imtixaano iyo qiimeyn centralizer ama caam ah oo lagu tartamayay iskuulada iyo ardada iyo gobolladuba ay ku tartamayeen si hanaan ah, si hufan oo habsami ahna way u waday wasaaradda waxbarashadu iyadoo aan marnaba laga maqlin suuqa iyo iskuulada iyo dhammaan gobollada Puntland wax imtixaan ah oo Puntland ay leedahay oo banaanka u baxay. ma hadaas waxa iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo koow dadka hawlwadeennada ka ah ee wasaaraddu ay xilka u dirsatay laga bilaabo shaqaalaha xafiiska imtixaanaadka, macallimiinta imtixaanka dejiya, kuwa dib u habeynta ku sameeya, daawacayaasha, kormeerada, kuwa saxa iyo dhammaan in allaal intii lu kule ee imtixaankaas ka qayb qaadata ayaa hufnaantaas iyo sirtaas adag iyo magaca iyo sumcadaas noo soo jiiday. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. sanadkan imtixaanku uu ka duwan yahay sanadihii hore 13 sano ee hore waxaa imtixaanka gacanta ku hayay oo fangareynayay oo wuxuu u baahda bixinayay midowga Yurub ayaa fangareynayay oo wuxuu u baahda bixinayay midowga Yurub waa taqriiban waxa la oran karaa inuu yahay deeq bixiyaha ugu muhiimsan ee waxbarashada gacanta ku haya. 13 sanana xafiiska imtixaanaadka lacag fara badan oo ku baxayay horumarintiisa, tababarada, mushaharaadka, dhismahan hadda aan ku jirnay aadka u dheer waxa soo dhan midowga Yurub ayaa bixinayay. laakiin sanadba sanadka dambe kaalmadaas way soo dhimaysay. 2012 bay bilaabeen inay dib u gurasho ku sameeyaan maalgelinta imtixaanaadka Puntland waxayna cadeeyeen sanadka 2016 ee hadda maanta aan ku jirno inay aad iyo aad u dhimayaan amaba ay ka baxayaan maalgelinta imtixaanaadka. waxayna ku soo wareejiyeen xilkii maalgelinta imtixaanaadka dadweynaha Puntland, dawladda Puntland iyo shacabkeeda ayay ku soo wareejiyeen. wasaaradda waxbarashaduna xilkaas inay qaadato oo ay u guntato habsami u socodka imtixaanaadkana ay ka fakarto waxay u aragtay wax lama huraan ah ayay u aragtay. loona baahan yahay in laga yeesho kulan fara badan iyo istiraatiijiyad cad oo imtixaanka lagu meel mariyo laga yeesho. wasaaraddu 2 sano u dambeysay waxay ku taamaysay bal midowga Yurub inay ka dhaadhiciso inaanay kala bixinin gacanta xafiiska imtixaanaadka maalgelinta imtixaanaadka iyadoo la ogyahay sanadka ka dambeeya imtixaanada inay ballaaranayaan degmooyin cusub iyo gobollo cusub oo imtixaanka aan geli jirin ay soo gelayaan ardadii aad iyo aad ay u ballaaranayso. tusaale ahaan imtixaanka waxaa lagu bilaabay 400 oo arday baa lagu bilaabay maantana waxaa laga hadlayaa 15,000 arday ayaa laga hadlayaa in imtixaanka laga qaadayo. laakiin si kastaba ha ahaatee arrintaas wasaaradda waxbarashadu way ku guuleysan weyday inay midowga Yurub ka dhaadhiciso imtixaanka inay gacanta ku sii hayso inta aanu ka qaangaarayno amba aanu ka hananayno imtixaanadayada dawlad ahaan. arrintaas waxa wasaaradda waxbarashadu ay go'aansatay inay ku soo celiso shacabka Puntland iyo dawladda inay ku soo celiso imtixaanka maalgelintiisa inay ku soo celiso si imtixaankaas ay u meel mariso. waxyaalaha noo muuqday waxaa ka mid ah ee la oran karayo imtixaanka kor waa loogu qaadi karayaa in la kordhiyo oo wasaaraddu go'aan ay ku soo saartay in la kordhiyo lacagta ardada laga qaado ee imtixaanaadka si imtixaankii uu u xoogaysto oo baahidii rasmiga ahayd ee imtixaanku uu qabay loo daboolo. waxa la kordhiyay lacagtii ku baxay ardadu ay bixinayeen dugsiga sare 100%, form 4 kan leeyahay 100%, ardada fasalka 8aad ka qalin jabinaysana waxa la kordhiyay 50% ayaa la kordhiyay. taasoo macnaheedu uu yahay in imtixaanka baahidiisa oo gaaraysa sanadkan miisaaniyadda wasaaraddu ay u dejisay $500,000 60% ama 70% ugu yaraan ay ardadu ay soo saarto. midowga Yurub ayaa ahaa deeq bixiyihii ugu weynaa ee waxbarashada Puntland tan iyo sanadii 2003 waxaana xilligan qorshuhu yahay in shacabka Puntland ay noqdaan maalgeliyaha koowaad ee waxbarashada
wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa guulo wax ku ool ah ka soo hoysay dhanka waxbarashada sida diyaarinta manhaj wadani ah, deeqo waxbarasho caalamka iyo gaarsiinta waxbarashada dhammaan 9 gobol ee Puntland. Daawadayaal intaas waxa ku eg barnaamijkii gaarka ahaa ee aad kala socoteen Kalson TV oo ku saabsanaa guulo ay wasaaradda waxbarashadu dhanka waxbarashada ka soo hoysay iyo midowga Yurub oo joojiyay dhaqaalihii uu ku bixin jiray horumarinta imtixaanaadka Puntland. tan intaan barnaamijkan oo kala ku kulmayno waa bahda Kalson Garowe oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.